waxaan maanta halkan doonayaa kaga hadlo arrinta ku saabsan labada TV ee wasaaradda warfaafintu ka soo saartay go'aanka shalayto labada TV oo kala ah Star TV iyo Universal waxaynu ogeyn labada TV in laga joojiyay wasaaraddu ka joojisay shaqadii ay ka hayeen warbaahinta Soomaaliland waxa jirtay in la isweydiinayay waxa looga joojiyay waxay ahaayeen waxaan filaynay marka maxkamad la geeyo inaynu ogaano sababta looga joojiyay shaqada waxay tahay go'aan laga gaaro waxaan xan ahayn kama inaan maqal waxa looga joojiyay waxa aynu ogeyn inay dacwad gudbisay ururka ama uu gudbiyay ururka Soldier ururka saxafiyiinta ururada saxafiyiinta mid ka mid ah oo ay maxkamadda sare u gudbiyeen waxaynu ogaanay in maxkamaddii sare nasiib darro ay dib ugu celisay wasaaraddii ay ka soo dacwoonayeen ay yidhaahdeen iyagii dib ugu noqdo oo runtii aynaan fahmin qof ama hay'ad ka dacwoonaysa oo la yidhaa iyadii ku noqo halkii looga garqaadi lahaa ama go'aan kaloo madax bannaan laga gaari lahaa iyadii lagu celiyay innagoo intaasoo dhan isweydiinayna ayaa waxaa soo baxay go'aan wasaaraddii ka soo baxay shalayto oo ah ganaax $20,000 in labadii TV la saaro oo ku salaysan wada tashi aqoon-yahan iyo kulan wasaaradda gudaheeda iyo go'aankii maxkamadda ee ahaa wasaaraddii ka cabanaysay ku noqda saddexdaa qodob ku salaysan waxa kaloo go'aanka ku jiray inay u soo diyaargaroobaan labada TV heshiis cusub oo ay la galaan wasaaradda iyadoo kii hore wax ku dhacay iyo liisinka hore wax ku dhacay aan la sheegin wayna weli ka fahansaneen waxa loo kasalgeliyay arrintu markay sidaa tahay marka ugu horeysa arrintaasi waa arrin noogu muuqata inay qaldan tahay waana arrin cadaalad darro u muuqanaysa haddaanay ahaynba u muuqanaysa cadaalad darro waxaa laga hadlayaana ma aha arrin siyaasadeed ma aha arrin meel hoose laga eegi karo arrinkana waa arrin ku fadhiya oo saameyn ku yeelanaya dowladnimadeenna waa arrin saameyn ku yeelanaya dadnimadeenna waa arrin saameyn ku yeelanaya diinta waayo cadaalad baa ku jirta wasaaraddu waynu ognahay iyada laguma haysto maamulka laguma haysto inay hagto laguma haysto inay qaranka mas-uul uga tahay inay ka ilaaliso wixii hadimaa laakiin waxaa xaq loogu leeyahay inay muujiso oo ay caddayso dadka ay mas-uulka uga tahay u caddayso shaqaday qabanayso iyo cidday wax ku soo oogayso waxay sababtu tahay si aynu xaqa u ogaano waayo xaqa iyaguna way u baahan yihiin in lagu taageero dadka loo adeegayaana way u baahan yihiin in xaqa la mariyo sidaasay hore ugu maraysaa dowladnimadeenu sidaasay saameyn u yeelanaysaa dowladnimadeenu haddii maalinba qofka kursiga fadhiya uu adeegsado dareenkiisa dadka uu adeegayo
waxay noqonaysaa saameyn taban bay ku yeelanaysaa qarannimada waxa kaloo jirta waxa marnaba aan meel lagu soo qaadin xeerarka loo cuskanayo ganaaxyada xeerarka loo cuskanayo in kii hore la kasal gareeyay heshiiskii hore ama liisankii hore xeerarka muujinaya in dollar la isku ganaaxo inagoo ganaaxyadeena aynu ognahay aynu leenahay lacag Somaliland la yiraahdo oo ay xukuumaddu ku dhaqanto waxaas oo dhan xeerarka loo cuskanayana lama sheegin sidaa daraadeed arrintu way ka badan tahay cambaarayn waxaynu u baranay arrintaa waanu cambaaraynaynaa iyo dabeedna in la iska ilaabo arrintu cambaarayn maaha arrintu waxa weeye arrin qallooc gelaya dowladnimadeenna waa qallooc gelaya wada shaqaynta hay'adaha dalku leeyahay ama gaar ha loo lahaado ama ajnabi ha lahaado ama xukuumaddu ha lahaatee qallooc gelaya weeye qalloocyadaas hadday galaana danad way taabanayaan sharci bay taabanayaan waxay xumaynayaan jawiga lagu wada shaqeeyo ama uu dalka hore ugu maro marka ma aha in arrin loo eego arrintaas way qaldanayd waanu cambaaraynay dabeedna waanu ka xunahay ma arrintaas waxa ay u baahan tahay dadka aynu xukuumadda inoo shaqeynaysa ee aynu dooranay waajibkeedu waxa weeye inay wax noo hagaajiso waajibkeedu waxa weeye wixii aynu fahmi weynay ee gacanta ku haysan inay noo sharaxdo maaha inay dusha iyadu ay waxay doonto ka samayso bariyahan waxa inagu soo kordhay oo dowladnimadeena ku soo kordhay waxa la yiraahdaa meel sare laga haystaa meesha sare dad weydiiso atiraama madaxtooyada lagu sheegi maayo maaha ma xafiis aynaan garanaynba ma dad meel fadhiyo oo aynaan garanaynba meesha sare laga haystaa waxay tahay ama dad la xidhay xafiiska tiknoolajiyada anigu okay way arrinteedu laakiin meel sare laga haystaa meesha sare ay nagu soo kordhay meesha sarena inama anfacdo waxaynu u baahanahay inaynu kuwa meel sare joogana aynaan dulmin oo iyagoon waxba ogeyn inaan ogeyn baa laga yaabaa kuwa meesha sare la sheegaya taana loo tilmaami maayo waa dhaqan cusub oo imika nagu soo baxay dad baa xidhan cid xidhay baa la garan waayay waxay u xidhan yihiin baa la garan waayay waxa ka mid ah TV-ga astaan ilanka mulkiilaha ka ah horey u soo dhacday ma diidanin in qofkii sharci lagu haysto oo sharcigu cadii de waxaynu dawladdu u leenahay inay sharciga dadka mariso xadhiga iyo jeelka waxa loo sameeyay in qofkii sharciga jabiye la geeyo laakiin hadday dawladnimadu noqoto wax kale oo aan wixii ahayn soo dhex galaan oo meel sare la yiraayo dad baa wax abaabulay dad baa ka dambeeyay waxaynaan garanayn ay xafiisyada dawladda soo galaan way naga qaloocanaysaa dawladnimadu waana naga xumaanaysaa inaynu tiifiyada iska cambaarayno oo aynu iska sheegnaa waxba ka tari mayso waxba taasi ka tari mayso waxaanu halkan u soo jeedinaynaa wasiirka warfaafinta Saleebaan Yuusuf Cali Koore waxaan leeyahay wasiir waraaqda ka soo baxday wasaaradda ee uu saxeexay agaasimaha guud shalayto warqad ummadda qancinaysa maaha warqad sharciyadeeda la fahansiiyay maaha markii ugu horeysay dad aan magacawnayn oo aqoonyahan la yiraahdo intay shireen cid ganaaxeen 20 kun ay noqonaysaa si aynu u raacna garan mayno waxaanu leenahay labadan TV haddii wax lagu haysto cad xaq baad u leedahay
inaad ku soo taagto maxkamad gee maxkamadoo xukun waxay maxkamadda cadaaladda ka helaan bay leeyihiin system bay leeyihiin abiil lagu qaato haddii hoose ay cadaalad darro ka tirsadaan ama xeerkoo la qalday ka tirsadaan inay kuwa kale u gudbaan bay leeyihiin hadday qarannimada wax yeeleen taasay leeyihiin in la mariyo iyana ay isku difaacaan laakiin aqooyaha shiray aan magacawnayn wasaarad shirtay oon magacawnayn maxkamad qofkii ka dacwoonayay tiraa halkii aad ka dacwoonaysay ku noqo intaasba in aynu ku qancayno maaha wasiir waxaanu kaa codsanaynaa inaad warqaddaa kansal garayso ood arrintaana dib ugu noqoto labadaa tvna aad cadaaladooda ay mudan yihiin mariso ayaanu halkan kaaga soo jeedinaynaa xukuumaddana guud ahaan waxaan u soo jeedinaynaa inay fahmaan marka ugu horeysa inay waddankan dadkii doortay iyo dadkii aqbalay oo ummadda reer Somaliland ay u shaqaynayaan inay shaqaale u yihiin inay waajibka leeyihiin dadkuna ay leeyihiin waajibka inay dawladda iyo sharciga adeecaan labada waajib baa kala jira inaanay u qaadan xafiisyada ayaamaha ay joogaan inay dareenkooda ku maamulaan ee ay inay sharci ku maamulaan ayaa loo baahan yahay waxaynu dhisaynaa waa waddan curdina oon la ictiraafsanayn ku dhismi maayo inaynu sharciga ka baydhno inaynu waddooyin qalada marno ku dhismi maayo inaynu madaxda dulmino oo waxaanay samayn aynu ku dulmino inaynu meel saraa waxaan laga wadaa waxa wanaagsan inaynu fahanno kulligeen maxaafid iyo mucaaridba mas-uuliyadda inaga saaran ummaddan horumarkeeda iyo dhismaheeda ayaa wanaagsan sharciga oo aynu haddaanu jirin la samayno wasaaraddan iyo kuwa kaleba wixii sharciga ka dhiman hawshay wadaan inay sameeyaan ba loo baahan yahay oo ay wixii siyaasadee aan baarlamaan u baahnayn ay samaystaan wixii sharciga kalena ay u gudbiyaan si aan la isugu qabsan oo qofku ogaado sharciga uu jabinayo TV-gu haddaanu sharcigu hadduu soo saari waayo khudbadda madaxweynaha masalan halkay ku qorantay waa la xidhayaa waa in marka hore jirtaa oo garanayaa inuu dembi geliyo hadduu taa samayn waayo hadduu maalinta qaranka ka soo qayb geli waayo waa inay meel ku qoran tahay oo heshiis ku galay ama ay sharci tahay hadduu ka soo qayb geli waayo inuu dembi galay laakiin ma noqonayso in la yidhaah uu maqnaa uun ama soo muudaynine liisanka ka qaado waxa kaloo aan intaa ku raacinayaa dad aan reer Somaliland ahayn ayaa dalkan aynu ugu baahnaa inay maalgashi sameeyaan inay noo yimaadaan shaqo abuur sameeyaan waa ogtihiin dhammaanteen waynu ognahay shaqo la'aanta ka jirta dalka iyo dhaqaalaheenu inaanu inagu filayn wuxuu ku dhismaa dal oo uu Mareykan ka maarmi waayo oo China ka maarmi waayo oo Jarmal ka maarmi waayo oo Yurub ka maarmi waayo inay dibadda uga yeedhato hanti iyo maal dad sita oo jira waddanka iyaga gashado waxa muhiim ah dadka aan reer Somaliland ahayn ee aynu inoo yimi inay maal gashadaan dalka ee sharciga maraya sharci darro iyada cidna ma saamaxdo ee sharciga ku shaqaynaya ee ummadda shaqaalaysiinaya ee sharcigeena ku taagan waxa loo baahan yahay in la ilaaliyo inaan loo eegin halkuu ka yimi inaan dareenka lagu xukumin oon tuhun loo qaadin mar hadduu halkaaba ka yimi waxaasuu uga jeeday waxa waa in la garanayaa wuxuu qaldayna waxay yihiin inay sharci ku fadhiyaan wuxuu saxayna ay sharci ku fadhiyaan weliba soo dhaweyn bay mudan yihiin dadka maalgashiga guud ahaan ugu baaqaynaa in dadka dhagaysanaya dalkan
diyaar loo yahay inay maalgashi gashadaan ay yimaadaan dal nabadgelyo yahay lana fahmo dal yar oo wali qabiya ah oo waxyaabo qabiya ay jiraan inuu yahay inaan xumaan kala jirin waan soo dhaweynaynaa gacmo furmaan dadka maalgashiga wada ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay wixii qabiya dhimanna mas'uuliyadda si loo kala leeyahay loo kala qaado aan si isugu tagno waddanku wuxuu noogu dhismayaa wada jir iyo caqli iyo wanaag noogu dhismi maayo digdig iyo hanjabaad iyo xarig dhinacu u socdo iyo meel ka socdo iyo sharci loo cuskaday iyo distorjabin inta ay noogu dhismi maayo wadada ayaynan qaadin waana salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh